أنا لأنهاي سياسة قوة جهان عداده فقه يشكور نيون هبر قدر أما هوية أما الصومالي متلك رماه وعن لأنهاي فراها كلام بحين سياسة وقامنتا ورصعد نماذج ديقام مداس وعن كلام لأنهاي موقته إن أي حسن شيخ يحلفديس يحسب جيسو أي ضد نوع عاصة قصة الدران حسب جود waxaan leenahay laga fiirsado dadka xisbiyada furanaya xisbiya maasha maanta shaqan ka haynay magaalada waxaan ka shaqeynaa bilicdeeda iyo horumarinteeda ka shaqeynaa sidaas darteed waxaan rabnaa marka waxyaalana dhibay bulshada cadaado iyo reer mudug intaba aan rabnaa inaan ka hadalno dadka iga horeeyana way ka hadleen horta waxaan moodaa dadka Soomaalida maanta Soomaaliya dhibaato badan ka jirta maamul goboleed noqotay haddana qof walba oo deegaan u jooga oo maartay oo caqabad iyo dhibaato markaas ka jirto oo isku dayayna wax ka xalliyo ana horta waxaan aad uga xunnahay magaalada cadaado iyo galmudug ka shaqeynayna horumarinteeda inay dad madaxa oo xildhibaano iyo musharaxiin madaxweyne inay dhibto oo wax qabadkii dadka bulshada ay qabteen ay u bedesho ayaga ay xumaan ku noqoto oo haddana ay inta adkaysan waayeen barihii bulshada soo dhigaan way horta waxaan rabnaa inaan ka hadalno مثلا عبد الرحمن عبد الشكور وكلا وحو سو قري in qadar ay lacag ku bixisay in cadaado madaxtooyadeeda la qabsado taasoo gaf ku ah dadka deegaanka jooga waxa ku suganahay bartamaha magaalada cadaado oo ah xarunta baarlamaanka galmudug waxaan rabnaa inaan ka hadalno weerarkii gardarrada ahaa ay ku qaadeen dadka reer cadaado cabdiraxmaan cabdi shakuur iyo xildhibaanaha macallin fiqi haddii aan ku hor ah macallin fiqi wuxuu ahaa deegaan doorashadiisa waa magaalada cadaado وحلوان laga soo doortay cadaado runtii dadka reer cadaadana markuu musharax ahaan way taageereen asagana xildhibaan asagoo laga doortay halkan waxay xaq ugu leeyihiin inuu u raadso xuquuqdooda siyaasadeed waxay xaq ugu leeyihiin inuu ka fakaro amaankooda waxay xaq ugu leeyihiin wax walba oo dhibaato ayagoo ku inuu runtii ka damqado oo uu ka naxo taa bedelkeeda waxaa dhacday in marka ay ka tashadaan amnigeeda iyo aayahooda marka ay ka tashadaan inay runtii dhibaato ku noqoto lama filaana marka runtii taasna waa nasiib darro qof xildhibaan oo dadku ay xuquuq ku leeyihiin asaga oo ay rabaan in amaankooda iyo noloftiisa waxaas inuu saas sameeyo inay si saqalada tahay waxaan kala rabaa inaan baaq u jeediyo xisbiga UPD oo ka tirsan xogeeye ka yahay runtii dadku ixtiraam badan u haya xisbigaas dad badan oo kamid ah mas'uuliyiin badan ku jirta sida madaxweynaha hore Soomaaliya waxaan rabnaa inay jawaab cad ka bixiyaan waxa uu fiqi ku hadlay oo raacada ku weeraray haddii ay ku og yihiin ay yiraahdaan waa ku ognahay inay yiraahdaan عبد الرحمن عبد الشكور ردنا ما نقام بنين دار إذا عذاك على علي waxaan leeyahay xisbiyada ay ku jiraan nimankaasi oo ay ka yihiin madax gudoomiyaasha waxaan leenahay had bixiyaan raali gelin nimankaas warkii xumaa ee ka soo yeeray xisbiyada looma aas-aasin in dad lagu beegsado xisbiyada looma aas-aasin in lagu duulo magaalo dhisan oo nabad Ilaahay siiyay